kulan wanaagsan daawade ku soo dhawaaw muuqaal cusub ka oo aynu ciwaan uga dhignay sidee looga hortagi karaa ragga shabeelnaagoodka ahi kuwa oo caado ka dhigtay xumeynta dumarka balse haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar like dheh haddii uu ku qanciyo muuqaalkan si dhiirigelin ay noogu noqoto siina share garay waxaan ka afeefanayaa oo aan ka cudur daaranayaa in aanan muuqaalkan ugu talagelin in aan dad gaar ah ku aflagaadgalo ku farmuuqo ama aan ku tilmaamo sidoo kale waxaan ka cudur daaranayaa in ragga aan la wada simi karin waxaa ku jira rag aad u qiimo badan oo fahmi kara qiimaha iyo qadarinta ay leeyihiin dumarka waxaa jira rag badan oo aynu u baahnayn inaynu kaga hadalno muuqaalkan kuwa oo ah kuwa wanaagsan dadkana ka tilmaaman balse ragga aan doonayno inaan kaga hadalno waa ragga iskaga dhiga dumarka inay yihiin rag aad u wanaagsan oo markay dumarka qalbigooda ku beeraan naxariis iyo u damqasho si xun ula dhaqma oo waliba meel cidla ah kaga taga ugu horeyn waxaa laga yaabaa inaad la kulanto ragga qaarkii oo qaabkay wax u jilayaan ama u matalayaan ay aad u wanaagsan tahay oo marka kuugu horeysa ee aad la kulanto wax walba kula muuqanaya wax wanaagsan isagana kula noqonaya wiil dabeecad wanaagsan naxariis badan oo mar waliba ku amaana oo xilli kasta ku soo raadiya oo marar kasta ku sheega inuusan noolaan karin adiga la'aanta balse nasiib darro waxa ay dhacdaa marka uu ogaado inuu maamuli karo dareenkaaga oo uu xaqiiqsado in aad si weyn ugu jajaban tahay wuxuuba kugu noqdaa wiil aadan weligaa la kulmin waayo dabeecadiisii furfurnayd waxay noqotaa mid xixiran naxariistii badnaydna waxay isku bedeshaa inuu ku dhibsado inuu ku amaano iska daayayse wuxuu mar waliba ku muujiyaa xumaantaada haddii uu ku soo raadin jirayna waxay isku bedeshaa in aad adigu raadiso haddii uu kugu dhihi jiray la'aanta ma noolaan karase waxa uu kuu sheegaa inay jiraan dumar kaloo badan oo kaa wanaagsan haddaba maxaa keena isbeddelka sidan u weyn ee ku dhacay ruuxii shalay qaabka wanaagsan lahaa maanta san noqday ruuxani xun haddii aan taasi isku dayo in aan sharaxo waxay noqon kartaa dumarka oo si fudud u aamina ragga iskuguna dhiiba waxaan jeclaystay dumarka in aan siiyo talooyin ku saabsan qaabka ay uga hortagi karaan ragga magaca shabeelnaagoodka uu u baxay ama ragga dumarka inta badan ku ciyaara ragga qaarkii waxay jecel yihiin wax yar inay ku qabtaan kadibna aad wax badan u qabato dumarkuse intooda badan waxaa qalda amaba ay ku sirmaan qaabjiliinka ragga qaarkii taa oo ugu dambayntii ku kalifta inay ku dhacaan god weyn oo aysan filayn ka bixistiisuna dhibaato ay ku noqoto tusaale yar ragga khiyaano dumarka marka ugu horeysa oo ay doonayaan inay ku soo xirigeliyaan amaba uu doonayo in uu jacayl kugu beero waxa uu samaynayaa wax kastoo adiga ku soo jiidan kara siday doontaba ha ku qaadatee si uu jacayl kugu beero kadibna marka uu xaqiiqsado inaad isku dhiibtay waxay isku dayaan inay bedelaan dabeecadii aad ku baratay iyo dhaqankii aad ku ogeyd taa oo ay ula dan leeyihiin in ay dareenkaaga kiciyaan oo ay kugu beeraan welwel iyo murugo kadibna waqtigaaga oo dhan inaad ku lumiso sidaad isaga ku raadin lahayd ulajeedka ugu weyn waxay tahay marka uu arko inaad si weyn u jeceshahay wuxuu isku dayayaa in uu wuxuu doono kaa samaysto kadibna uu meel cidla ah kaaga tago ogow khiyaanadan waa midda ugu weyn oo ay ku howlgalaan ragga dumarka khiyaana marka koowaad wuu isku kaa dhuldhigayaa kadibna marka uu naxariis kaa helo wuxuu kugu kalifayaa inaad isaga daba ordo kadibna uu meel cidla ah kaaga tago haddaba haddii aan idin siiyo 3 talo oo aan isleeyahay dumarka way anfici doontaa shabeelnaagoodkuna fursad uma heli doono meel uu ka soo galo haddii ay gabadhu 3dan tala qaadato waxayna kaliyihiin sidan kow ha noqon qof daciif ah ama jilicsan oo si fudud isku dhiibto waayo ragga intooda badan waxay raadiyaan dumarka aysan iyaga la'aantood noolaan karin balse ma raadiyaan mana daneeyaan dumarka ay og yihiin in ay tahay qof si fudud lagu heli karo amaba aad iskugu dhiibay oo ay dareemayaan iyaga la'aantood inaysan noolaan karin haddaba adigu ha noqon gabar si fudud lagu helo waayo rag sidoodaba waxay raadiyaan waxaysan haysan ee adiga mar walba noqo ruux ka madax bannaan isaga oo noolaan kara la'aantiis taasi waxay keenaysaa inuu mar walba adiga ku soo raadiyo waana dabeecad ay ragga ka siman yihiin lambar 2 haddii aad wada hadlaysaan
ilaali hadalkaaga oo ka fiirso waxa aad adigu ku hadlaysid sababtuna waxay tahay raggu waxay aaminsan yihiin in iyagu ay u hadlaan si caqli gal ah dumarkuna ay u hadlaan si qiiro leh oo cadiifi ah ama cadiifadi ay ka muuqato haddaba si aad hadalkaaga u xakamayso noqo qof aan hadalka jijibin oo aan isdhuldhigin waxaadna ogaataa ragga qaarkii dumarka isdhiiba oo u calaacala inay uga sheekeeyaan asxaabtooda ee haddaba ka fiirso inta aan lagaa sheekeen marnaba yuusan hadalkaaga ka dareemin dabacsanaan iyo in aad tahay qof u jajaban isaga waxaa hubaala haddii uu arko adigoo hadalkaaga miisaan uu leeyahay oo aan isdhuldhigin inuu mar walba isweydiin doono sidii uu adigu kugu heli lahaa lambar 3 isku day inaad xakamayso dareenkaaga qalbiga marnaba ha ku badin wicitaankaaga hana isku dayin in aad baadi goobto waa inaad ogaataa ragga qaarkii waxa ay jecel yihiin in ay dumarka tijaabiyaan sidaa daraaddeed haddii uusan ku soo xiriirin ha noqon qof isaga xabsi ugu jira oo aan la'aantii waxba qabsan karin ee waa inaad noloshaada kala raacataa waa in aadan ka murugoon haddii uusan ku soo wicin amaba uusan ku soo raadin waayo haddiiba ruux ay damqayso dhibtaada cidlo kaagama tageen ee ruuxii cidlo kaaga taga adigoon xumeyn waa qof aan danka lahayn haddaba maxaad noloshaada qiimaha badan ugu khasaarinaysaa ruux aan isagaba kuu quwin wanaag midna ogow jaceylka sidiisaba guurka ka hor waa ribaayad guurka kadibna waa taariikh haddaba jaceylka dhabtaahi waa kan kugu hogaamiyo guurka xalaasha ah ee maahan jaceylka riwaayadda ah oo wakhtiga la iskaga lumiyo intiisa badanna ku dhisan khiyaano iyo waqti lumis ugu dambayn waxay u kalifiinaan mawduucan ka hadlo waxay tahay waxaan arkay dumar badan oo ka cabanaya ragga marka koowaad waxaan ragga leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ka baqa oo iska ilaaliya xaqa dumarka oo yaanan lagu xadgudbin waayo dumarku waa qayb ka mid ah jirkaaga dumar la'aantood aduun lama joogeen way ku dhaleen way kula dhasheen way ku dhaxdaa ama waad gursan doontaa waad ka dhashay ama waad dhali doontaa haddaba sideen ku xumeynaa noloshayna oo idil iyaga ayayba ku dhisan tahay waxaan rajaynayaa intii qaldantayna inuu Alle dambi dhaaf iga siiyo dumarkana loo naxariisto waxaan kaloo dumarka kula dardaarmayaa weligaa ha isliidin oo ha isdhuldhigin ruuxii wanaag kula damacsan waa ruuxa guri xalaal ah iyo guur kugula yimaada ee maahan kan waqtiga kaaga lumiya haasaabo iyo wax aanan u qalmin teeda kale yaysan idin qaldin qaabjiliinka ragga oo ha ku kadsoomina ragga qaarkii haddiise aad dooranaysaan lamaanaha nolosha ha noqdo nin ahlul diin ah oo ay ka muuqato sunnada islaamka weliba aad si weyn uga taxatartay dabeecaddiisa waayo qofka keliya ee ku sharfaya waa ruuxa Allah subhanahu wa ta'ala ka baqa oo og haddii uu kugu xadgudbo in Alle uu ka goynayo waxaan Alle weydiisanaynaa in uu dhowro dhammaan hablaha islaamka ahi qaasatan hablaheen Soomaaliyeed intii aan saxayna Allah subhanahu wa ta'ala ayaa i waafajiyay intii aan qaldayna shaydaan xaqiisa ay ahaatay balse haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu abaalmari subscribe-ta haddii muuqaalkan uu ku qanciyo like noo saar si uu dhiirigelin inoogu noqdo shargalay commentigan waad inoogu soo gudbin kartaa wixii dhaliila iyo cabashaha ee muuqaalkan ku saabsan waad maasan tahay